السلام عليكم صاحب يال waxaad ku soo dhawaataan sheekadii Dhoof Iyo Dhaxal Caashaq waxaad hore u soo dhageysateen qaybtii 13aad waxayna inoo maraysay Jamaal oo mar kale ladan kula taliyay inay ka digtoonaato qorshaha jalaafaynta ah ee waalidkeedii ay ku wadaan jaceylkeedii haatan waxay noo bilaamaysaa qaybtii 14aad waxaana soo jeedinaya anigoo Suleiman Bukhari sida tan ayayna ku bilaamaysaa sheekada qaybteeda 14aad ladan walbahaar ayaa ku furmay hadalka uu Jamaal u sheegay ayaa u tun ku noqotay waa nin weyn oo been kuma sheegayo haddaan isdhihi lahaa liibaan ayuu booska ka riixanaya isaga ima uu rabo oo waan ka dareemi lahaa hadda ka hor ayuu hadalkan oo kale igu yiri oo weliba shaqadiisu ku wayn rabay haddana mar kale hadalkii ayuu ila soo taagan yahay way dhici kartaa in hooyaday iyo aabahay ay ugu wadaan qowda maqashii waxnaha u qaban laakiin waa inaan ka tabaabushaysto Jamaal aan la taliya Caashaq ka dhigtaa inta markii ay iskula xadaaqday ayay cabaar aamustay iyadoo dhabanada haysata ayayna hoosta ka gooxday oo tiri walle waa suuragal horta maxay igu diideen inay igu meheriyaan oo ay u qaateen go'aanka ha soo laabto Allah Jamaal khayr alle hasiyo wax buu ii iftiimiyay yaa qof aan yaabin baa yiraahdaa waan yaabay tanina yaab iga dheh Jamaal inta buug akhriskii ka soo jeestay ayuu dhankii ladan ka xitay soo jaleecay misana kaligeedii ayaa isla hadlayso oo faraha taagtaagaysa wuu ka gaabsaday oo inuu sheekada ka qaso ayuu diiday in cabaar ah markii isla sheekaysi kaligeed ah ku guda jirtay Jamaalna uu iska ag fadhiyay oo uu sugayo ilaa ay la sheekaysiga kaligeed ah ka dhamaysanayso ayay mar dambe dhankiisa soo milicsatay walaalow Jamaal talo iskuma ka sheegto aniga run ahaantii liibaan waan jeclahay oo inta dunida ku uuman ee bini aadam ah isaga ayaan uga jeclahay laakiin sida aad ii dareensiisay waa ii bidhaatay shaki weyn ayaa i galay waxaan la yaabanahay dadku kuma xisaabtamaan miya in hantidu tahay deeq alla bixiyo oo qofka maanta aan haysan alla siin karo hadii uu ku samro faqiirtinimadiisii qofka haysta ee ku kibrana alla ka qaadi karo wallahi waa yaab waxaase shaki ugu abuuray liibaan kaligiisa ayaa jaamacad dibadeed u diraynaa adigana waad ka haraysaa hadday run sheegayaan may anigiyo isagaba na wada diraan si jaceylkeena aan halkaas uga wada walwaalno inta aamustay oo hadalkii ka kala go'ay ayay haddana la soo xinqatay arrintan waa calaamad su'aal welibana calaamatu la yaab wadataa laakiin macno ma laha shirqda ay jaceylkayga u dhigayaan sidii aan kaga baxsan lahaa ayaan anigana qorshihii aan kaga badbaadi lahaa adeegaya Jamaal wuu gartay in ladan ay wax fahantay maxaa mar hore inaad sidaan u fakartaa lagaaga waayay aniga in jaceylkaaga ku badbaado oo liibaan aad ishanataan ayuunbaa doonayay qorshe kale oo aan wato ma jirto aniga shaqaalihiin ayuun baan ahay bari ka maalin shaqadiina waan ka tagi karaa adiga leh ka taxdarayay oo miskiinka liibaan inuu san bohol gelin ayuunbaa rabaa ladan oo inay hadasho u holatay ayuu Jamaal kaga hormaray hadalkii oo yiri waa tahay hadda maxaad damacsan tahay inaad samayso ladanay aboowe qorshuhu wuu iska badan yahay laakiin adiga ayaan kaa rabaa inaad tala iga siiso arrintan Jamaal intii cirka eegay oo sidii ay wax uga soo dhacayaan indhaha sare u goday ayuu la soo xinqaday haa talo haddaan hayaa haye bal soo daa ayay ladan la soo booday iyadoo neef tuuraysa horta waalidka liibaan qorshaha dhoofka ha u dhameeyaan waalidkaana u sheeg inaad dhowrayso ilaa ma uu ka soo laabanayo laakiin qorshaha ay wataan hadii uu kala fogeys yahay waxa looga hortagayaa in adiga iyo liibaan aad isla baxsataan oo tuulada cagaaran ee degmada marka iska soo meher qarsataan marka wax kasta oo waalidka la yimaada waxba kama aysan gelin oo liibaan xarig ayaad ugu jirtaa wallahi waa talo wanaagsan ka noqosho ma leh hadda ayaan taa fulinayaa khayr allaha ku siiyo ayay si marxabayn ah u tiri ladan oo uga mahadcelisay Jamaal fikirkaasi wacan ee uu soo jeediyay
ladan waxay qaadatay taladii uu soo jeeday jamaal oo ay u aragtay guul iyo kifaax caashaq waxayna isla subaxii xigtay u bandhigtay liibaan oo arrinka u gudbisay laakiin liibaan arrinka wuu ka qalqalay oo ka jareeyay maad naga daysi dabaayo mafaaso iyo dhibkeedii ka waran haddii waalidkaa nagu ogaadaanna markaasaan aniga lafaha layga garaaco kolay adiga wax laguma yeelayee abbaayo aniga kuma jiro arrintaasi maya dhib iga dheer isku soo jiidi maayo jaamacaddaydana iska arqaladayn maayo ayuuna isagoo gacmaha ka dhididaya ugu warceliyey ladan oo geesnimo gelinaysa liibaan ayaa ku tiri oo kaalay liibaan walaalow anigoo gabar ah arrinkaasi waan u bareeraye adigoo nin rag ah oo boqolow ah miyaa ka baqaaya war xitaa haddii la ogaado soo aniga iima darnaa teedi kale si aan laguu ogaan ayaan yeelaynaa oo isla gaarigii aabbahay ayaan qaadanaynaa oo jamaal ayaa ina kaxaynaya waxaan leeyahay sawir xasuuseed ayaan iska soo qaadaynaa aniga iyo liibaan oo beeraha loo dalxiis tago ee degmada afgooye ku yaala ayaan tegaynaa dhowr mar xitaa aniga iyo aabbahay ayaa isu raacnay wuuna naga yeelayaa taas liibaan arrintaasi si kasta way ku cusleed oo madaxa ka gilgilay jamaal ayaana kaxaynaya ah isagaaba noqonaya ninka ugu horreeye ee ina kashifa soo darawalka aabbaha maaha raalli how abbaaye aniga baxar ha igelinin ayuu liibaan hadallo naxdin leh ku yidhi una muujiyey ladan in arrintaasi ay isaga ku adag tahay kama aysan quusan ladan inay liibaan ka dhaadhiciso qorshahaasi oo iyadu u aragto mid jaceylkeedii xarig adag ku guntaayo waxayna u sheegtay in jamaal yahay ninka arrintaasi u soo hindisay sidoo kale waxay u sheegtay in waalidkeedii ay doonayaan kala geyntoodii oo dhoofka uusan daacad ka ahayn marka inta goorigoor tahay aan ismehersanno inta aadan amba bixin si aan uga hortagno shakiga jira ayay ku tiri ladan oo dhan kasta wax ka fahamsiinaysay liibaan si ay jaceylkeedii ugu samayso difaac adag fakar gaaban kadib inkastoo ay buuraha kala cusleed liibaan wuu aqbalay qorshihii ladan u soo jeedisay wuxuuna taa u yeelayay isagoo ugu horrayn diidanaa in qorshaha ay ladan wadato uu ka hor imaado iyo inay dhici karto warkay sheegayso oo sababta loo dhoofinayo ee qarashka badan loogu khasaariyey ay tahay sidii loo kala geyn lahaa aysan wanaagiyo ka ahayn horumar ladan markiiba waxa ay u kuur gashay sidii arrinkaasi ay u fududayn lahayd waxayna durbadiiba u tagtay aabbaheedii oo ku tiri aabbow maadaama uu liibaan dhoofayo waxaan rabaa inaan sawiro xasuuseed aniga iyo isaga isla soo galno marka noo oggolow in jamaal noo kaxeeyo beerihii afgooye ee aan adiga iyo hooyo u dalxiisa tegi jirnay saaxiibayaal waxaa intaa ku eg qaybtii 14aad sheekadii Dhoof Iyo Dhaxal Caashaq ha moogaanin qaybta 15aad iyo in codsigaasi ee ladan aabbaheedii u gudbisay laga ogolaan doono si qaybaha kale ee sheekadaad ula socoto subscribe star YouTube channelkan Xog Waran Media